ما جعش هاي ولا الإله سبحانه وتعالى إنه عمرك كبر كيو أرساقنا كاغدغو مid laba filaan ah oo meel walba kaaga timaado haday jawaabtaadu tahay waxa kaaga xiran labadaada waalid sad ku tahay hadaba rasuulka oo waalidiinta iyo sharafta ay leeyihiin iyo karaamada agtiisa iyo agta ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin noo tilmaamaya wuxuu yiri man sarrahu an yumidda lahu fi umri wa yuzadu fi rizqi falyabarra alwalidayhi walyasil rahimahu rasuulku yiri qofka raba inuu nolosha adduunyada oo ku noolaado nolol qiimo badan oo raaxo macaan leh rabana inuu ilaahay umriga u barakeeyo waa inuu labadiisa waalid sida uu ku yahay u eego haduu ku wanaagsan yahay waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala umrigaagu barakeynaya arsaaqdana meel walba uu kaaga keenaya wax walba kugu xeeran oo dhibaatana uu ka dulqaadaya ilaahayna kitaabkiisa wuxuu ku yiri waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ilaahay markuu